السلام عليكم. muuqaalkan ila fiiri. حلقة إنه ريال وابا علي بحيث بابي هلو دقاد على الله بكيوي وادي وحلو لك كويس المحيط وانا بابي زي بيد الدبيسة باشاس وانا نبتي بيد القويسة وانا كويسة بحيث كويسة دبي تلك بيزوك شيء أيه تركنا تلك بيبعث ما شكليته يا ليس فدنا انا بقول كلامتي كوكر كلامسا أيه بحيث بيد كويسة وقف عينا هذا بحيث بيد كويسة باشا وقف عينا وليا باشا محمد بحيث كويسة ماشي ما يقول تلك بيلي لقاي أيه ميران شغلي كوي ما هو زوك شيء أيه لويس مكوجرتين وقف عينا لقا فريسني إذا كان فريسي محد كان فريسي شقي دارودين شغال وديتين أيه بحيث بهذا باشا بيد كويسة أبينو نبتي هذا سيف عاوستك جوج على عارف هذاك سومات صدورا لقا نبت ماشي لاك ولا صوت درتي كذبنا ماشي سالك بعرف باشا ما يدقوا بس كل راح يسلسل وانا كويسة إلهي يدقوا إلهي يدقوا الله ما راح اقول ولا انت شبالي ودي شنبادي بتي qaybtan kalena ila fiiri. الله بأيديكم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم sida aad arkaysaan waa cusbadii aan idinku idhi cusbadana waa mucjizo. il haddaad qabto, sixir haddaad qabto, jin haddaad qabto, yacni il noocay tahayba, hadday xasad tahay, hadday caashaqo tahay, hadday mucjabo tahay, ayinkan sixir uu yahay, khaasatan sixirka lagu istaagay iyo ka raxamka fadhiya iyo umusibyaanta waxay yihiin oo dhanbo cusbada ilaahay idankii way baabi'inaysaa. qaybta hore, qaybta hadda aan joogo idinkala hadlaayo xafiiskeeda anaan fadhiyo waa qaybta Minneapolis. qaybta hore waa qaybta ragga. dadka masaakiinta ah ilaahay subxaana watacaala meelay joogaan oo dhibta allah ka qaada sixiran ama xanuunada haysto. saad arkaysaan waa abba Soomaaliyeed oo xanuunka sixirku dhibaateynayo. maanta waxay u ahayd maalin hoog bay u ahayd. qaybta waa qaybta hore oo ragga. waxaa ku xigay qaybta labaad ama raaca labaad oo ah qaybta dumarka, oo hadda qayb ka mida hooyooyinka oo kale aad arkaysaan markii cusbadii ay ku istaageen qaarna sogosaanta aan ugu shubay waxaa cabaad iyo hoog ka baxaya. qur-aan ma ku bilaabin weli, lisma gaarin. waxa ay ka calacalayaan oo saa uga baaba'ayaan waa cusbada. cusbada markaa maxaa ku jiro? cusbada horta sideeda waxay u tahay mucjizo. waan arkay meelo fara badan oo looga hadlayo oo run ahaantii cusbada iyo maaragtay say u burburiso waxyaalahan isha iyo sixirka iyo xanuunada ay u baabi'iso. xataa marka waa laga yimaado, xataa waxaa loo isticmaala in dhiigga lagu furfuro. qofku nashaad badan buu ka helaa, jeermiskay dishaa, maxay ahayd qofka caajiska iyo kor xanuunka iyo waxyaalahaas bay aada u baabi'isaa. xataa markaad u fiiriso gaaladu iyagu ma yaqaanaan dee maaragtay si kale jini iskaga daaweeye, waxay ka raadiyaan inay nashaad ka helaan. marka hadda mawduucay kusoo laabto, dadkan dhammaantood way ku xanuunsadeen. hal qof kuwaan hadda sii daya, hadda wax yar ka hor kuwaan sii daya, kuwaan ku bilaabay hadda taqriiban waa 9 habeenimo, kuwaan ku bilaabay galabta 5, hadda qaar baan sii daayay ku xanuunsaday. maxay markaa cusbadu sameynaysaa? cusbadu waxay sameynaysaa horta kow waxay ka kooban tahay waa milxul baxrida, zacfaraan, misku aswad iyo maa u zamzam. intaasay ka kooban tahay. qofka markuu ku istaago ama isagoo fadhiya sogosaanta lagula shubo, shadaadiintan waxay bahashan u leedahay baawar rabbaani ah oo dilaya. hadda ujeedan aabaha Soomaaliyeed iyo kuwa kale idin muuqdaba, waa ujeedan hooyooyinka Soomaaliyeed iyaguna say noqonayaan. mid walba markaad wareysato oo aad tiraahdo maxaa ku asiibay, wuxuu leeyahay dhiigga dhan baa sun iroorta. cusbadu marka haddaad il qabto iyo haddaad sixir qabto iyo haddaad jin qabto intaba waa kuu daawo ilaahay idinka. waxaad sameynaysaa sogosaan baad soo qaadanaysaa,
sidan hadda hooyada halkeeda ka muuqato way qabtaa sogoska intaad ku shubtid qaybta hoose oo calaacashaad u dhaadhicinaysaa halkaad ku istaagto lugta halkaad kaga istaagto calaacasha dhulka aad dhigto qaybtaas ayaa waxaad sameynaysaa ayaad u dhaadhicinaysaa kadibna wax yar baad kula soo soconaysaa ama intaad kursi saas ugu fadhiisato baad dhulka saa u dhigaysaa yani lugaha saa dhulka u saaraysaa aysan ahayn waxaad soo gadataa caagan oo kale waa laga helaa meelahan maxay ahayd sida online wax looga gato sida Amazon tiyo soo gado massage-ka loogu talagalay waa kan hooyadan haddaan ugu shubo kale cusbadii baad ku shubaysaa kadib waxaad lugaha uga istaag yani ku istaag baad leedahay dhiigay furfuraysaa isha iyo sixirka iyo jinka iyo wixii jirka ku jiro dhan koobi ka siinaysa naqsi ku dhijinaysa naftay ka wada qaadaysa maanta aad baa gurubada ugu xanuunsadeen rag iyo dumar waa lagu jiraday wixii jirkooda ku jiray saa ruuxda iyadoon quraan la bilaabin bay saa calaacalayeen oo saa ay u baabeen cusbada marka qaabka wad sameynaysaa insha Allah taala qaabka u samee waad ku qubaysan kartaa intaad qasto si fiican u qastid ilmaha ugu qube guriga ku rushayso adigu maaragtay maxay ahayday maaragtay subax iyo galabtii lugaha gasho khaasatan dadka lagu xanuunka qaba mar horena waan soo galiyay klibkii hore dadka lagu xanuunka qaba rheumatismka dadka qaba ama maxay ahayday calciumkoodu maaragtay intuu ka yar yahay daawooyin calciumkana qaata insha Allah iyadan wax badan bay ku taraysaa ilaahay idinka waad arki doontaa biidn illaahi tacaala xagaad ka helaysaa lambaradaas insha Allah taala walaalaha Nairobi jooga Muqdisho jooga Hargeysa jooga walaalaha Minneapolis jooga dukaankan ku yaala misaadka Abubakar Mool ka soo horjeeda ayaad ka helaysaa cusbadaas waa u qira insha Allah adigana waad ku caafimaadaysaa soo doono ama meesha aad joogto ka doono insha Allah tacaala Allah idinku caafiyo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بيجك وكو مرتي فلو سود إن شاء الله ولا لك الجارسين ما تسند دواء شهادة ولا لا جزاك الله خير